munaasabada lagu soo bandhigayay waxyaabaha ka soo baxay cilmi baarista ay ardaydana sameeyeen ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay rugta ganacsiga Soomaaliyeed, macallimiinta iyo madaxda jaamacadda iyo qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Badweynta Hindiya. ugu horeyntii waxa goobta hadal ka jeediyay Axmed Maxamuud Cusmaan oo ka mid ah ardayda soo bandhigtay cilmi baaristan kaasoo faahfaahin ka bixiyay taariikhda ganacsiga Soomaaliyeed. rugta ganacsiga Soomaalida taariikhdeeda anigu ku soo dhex jira waxa madax ka noqday dad badan oo loo yaqaan rugcadaaya waxa ka mid ah Ismaan Axmed Rooble oo 1980 kii madax ka noqday waxa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo alla hada kuma jiray 80 kii waxa madax ka noqday Ismaan Axmed Rooble 80 kii waxa madax ka noqday Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal taariikhtii hore ganacsigu dhalinyarada faraha badan ee bartasharafta ka tirsan iyo dad badan oo aan aqoon haddii la isweydiino halkii ku wali jirtay waxay ku taallaa hoteelkii Taleex loolan jiray wadada ka timaada dhinaciisa bidix marka bakaaraha laga soo socdo halka carwada loo yaqaano halkaasoo ahayd meeshii lagu soo bandhigi jiray wax soo saarka ganacsatada Soomaaliyeed caalamkuna uu iman jiray bandhigii ugu qaban jiray baabulo soo jeedinta ama recommendation waxa soo jeedinaynaa in la baabulo kulamo lagu wacyigelinayo ganacsatada looguna sheegayo rugta ganacsiga ahmiyadda ay u leedahay horumarka ganacsiga iyo horumarinta ganacsatada yaryar in la dhiso xirfadaha ganacsi ee ganacsatada yaryar si ganacsigooda hore u maro waxaan soo jeedinaynaa in xarumo laga furo dhammaan gobolada Soomaaliya si dalka oo dhan loo horumariyo ganacsigiisa guud in ganacsatada la dhiirigeliyo inay ku biiraan rugta ganacsiga si ganacsigii loo kobciyo oo sidii la rabay uu noqdo oo aan adduunka intii ay socotay munaasabada ayaa soo bandhigayaasha cilmi baaristan la weydiiyay su'aalo ku saabsan daraasadooda qaabka ay u guda galeen iyo haddii ay jirto cid gacan ka geysatay ayagoo uga jawaabay si saraaxad leh. su'aasha aan weydiinay waxa jira ganacsato yaryar oo Soomaali ah oo ka shaqaysata digaaga tusaale ahaan ama dalka gudihiisa ku dhaqda ama gobolada ka keenta ama magaalada ku dhaqda ganacsato kale oo dibadda ka keensatay waxa jira oo shirkado kale wakiilka ah oo suuqa ka saarta door intee leeg ayaad ku leedihiin in aad ganacsatadaas yaryar ee suuqa laga saaraya aad xanibaad ka saartaan idinkoo u raadinaya noloshooda si ay u maareeyaan maadaama su'aalaha ay ku wajahan yihiin rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxaan ku qasbanahay ardayda buugooda inaan qayb ka ahaa maanta oo ku faraxsanahay ardayda in su'aalaha la weydiiyo midda kale dhibaatada jirta Soomaaliya ganacsigeeda ku dhacay guud ahaan ma ahan wax digaaga kaliya saameyn ku leh wuxuu saameyn ku leeyahay ganacsiga wadanka oo dhan ayadoo la heli karo waxyaala wadanka laga soo saaro ama wadanka laga heli karo resource-ga inta dib loo qaada macnaha China iyo waxa la geeyaa India dib loo soo sameeyaa ka bacdina Soomaaliya lagu soo celiyaa marka culayska Soomaaliya haysta digaaga kaliya kama haystee wuxuu ka haystaa ganacsiga qaybihiisa kala duwan oo dhan arintaasna rugta ganacsiga Soomaaliyeed way ku baraarugsan tahay dad badan oo kusaysan way kala hadashay laakiin markii la rabo in wax demotivation lagu sameeyo ama wax dhibaato ah laga hortago macnaha waxa jiro way loo maro oo loo xalliyo wiil loo xalliyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxay xaq u leedahay inay soo jeediso laakiin implementation-keeda ama arintaas in la dhameystiro waxa wakiil ka noqon karta ama macnaha qayb ka ah dawladda Soomaaliya waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo mas'uulka ka socda rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku soo biireen ganacsatada Soomaaliyeed waxaan maqalnay in rugta ganacsiga markaa tagtay lagu leeyahay dahabshiil ama maxaa salaam Soomaali account-kaaga furan yahay shuruudaha lagu xirayo qofka rabo inuu ganacsiga ganacsi cusub abuurto maxay tahay tan kale jirta qofka rabo inuu soo dhoofiyo maxaa la alaabo dhacay inuu soo dhoofiyo dalkaas oo kale ma la talisaan soo u maalgelisaan fikradiisa. ugu dambeyntii gudoomiyaha jaamacadda Badweynta Hindiya injineer Samawada Maxamuud Cali ayaa ku bogaadiyay ardayda soo bandhigtay cilmi baaristan asagoo tilmaamay in ay qabteen hawl muhiim ah. rugta ganacsiga waxa waaye ayaga promote garay policies dawladda dawladdu uga keento ayaga proactive ah oo miiska soo saar waa loo gareeyaa oo lobbying services ay qabaan oo very powerful ah marka doorasho imaato marka rugta ganacsiga waxaan kula talin lahaa in ay
ay infiltration ku sameeyaan political systemka waddanka si oo roolkooda uu xoogaa strong u noqdo. waxa kaloo ku darsanayo waxaa waaye advocacy-ga oo loogu baahan yahay inay qabtaan waddanka dictatorship ka soo baxa. waxaa u malaysaa ruleskii oo dictatorship-kana in xoogaa meesha ku harsay yihiin, kuwaasna in laga saxay u baahan yihiin oo mid active ah oo wixii oo dhiirigelin ahna waa wixii caasho ka hadlaysa hadda oo ah dadka yaryar oo raba inay business furtaan oo culays badan jiro. programming encouragement ah weli ma maqlin oo la sameeyo oo ka caawinayo in business galaan. ID qofku waa haya bankiga idinka yaqaano, ganacsatada idinka taqaano, kuwa ugu waaweyn. marka kuwa ugu waaweyn iyo kuwa ugu yaryar in qol la soo wada fadhiisiyo xoogaa maaragtay encouragement meeshaas ka dhacdo muhiim waayadana waan ku talinaya insha allah. daraasadaha caynkan oo kale ah ayay ardayda jaamacaduhu soo bandhigaan inta aysan qaadan shahaadooyinkooda jaamacadeed. Dugaal Macalin Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Muqdisho.